runtii in qorshe la fuliyo ama la qabto waxay ka bilaabanaysaa qofka inuu yaqaano wuxuu qabanayo marka qorshe la sameeynayo macna marka hore waxa la sameeyaa qorshaha ka hor dib u eegis la sameeyaa wixii sanadkii hore adiga uu ka fiirinay intee u socotay intee joogtaa maxaa ka qaldamay maxaa ku saxmay hore ugu soconay maxaa ka qaldamay oo hagaajinay marka qorshe la sameeynayna waxa muhiim ah koo in ay ogtahay wixii la qabanayo activity-ga la qabanayo ogti iyo wax qabad maxaan qabtaa sideen u qabtaa goormeen qabtaa maxaa khayraad u baahanahay inaan ku qabto wax qabadkaas ugu dambeyntiina maxaa tilmaamo guul ah oo ka soo baxay waa meesha u socono tilmaamihii guush ardadii gobolka Banaadir oo hadda la dhahayo sanad kaste gobolka Banaadir ugu dhicid badan tilmaamaha guusheen waa inay noqdaan maadaama gobolka Banaadir uu yahay gobol ee Soomaalida dhan ay wada degan tahay gobolka ugu bulshada badan uu yahay gobolka ugu macallimiinta laga soo doonan jiray inuu yahay aad la socotiin meesha ay marayso waxay ka bilaabanaysaa sidii loo wada hagaajin lahaa waxaan marka loo mahad celinayaa dhalinyarada agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir oo u soo istaagay ayagoo si muddo-dawacnimo ku shaqeynayo oo ognahay inay saxaan ama toosiyaan wadan qaldamay oo aan eber ka soo bilaabayno soo tozeera Allah eber ka hoos aan ka soo bilaabayna in wax la dhiso iyo in wax la dumiyo waxa adag in wax la dhiso marka waxa anagana laga rabaa qorshahan aan meesha ka qaadnay in markii iskuulada la geeyo waxa la dhahaa kormeer keekooze kormeer muxuu yahay kormeer waxa waaye waxbuu saxa laakiin kormeerka ugu horeeyo waa maamulaha iskuulka jooga kormeerka ugu horeeyo maxaa dhaca asaga la socdo muqarrarkii macallimiintiisa kala yaqaano waxa lagu aaminay bini aadan inta ilaahay abuuray quraankiisu ku sheegay waxa ugu qiimo badan oo abuuray bini aadanka waay misana bini aadan mustaqbalkiisa lagu aaminay waxa lagu qiimeeyaa bini aadanka warqad cad cunuga markii iskoolka la keenayo warqad cad una baajina bianka warqad cad lagu qiimeeyaa in ardayga loo keenayo warqad cad marka lagu keeno wixii aad ku qortaa ku qornaanay haddii cunugaas si lilaahi u barbaariso mas'uuliyadii ka saarnaa aad qaadato macallimiintaadii aad ka siisaa daba raacdo iskuulada qaar wixii laga sheegay inta way jiraan qofkii qof dulmiyo waxa laga yaabaa shakhsi dulmiyo min al-ayaam inuu dhaho shakhsi hebel ama maalin hebel dulmiyaha ay cafiyo laakiin wax umada ka dhaxeeyo qofkii qaldo dadka dhan kuma cafin karaan shaqooyinka arrimaha bulshada aan dugsiyada ka hayno waa bulsho nagu aamintay ilmahooda haddii aan si qalada u isticmaalno ilaahay wuuna daalacana wax kasta oo lagu siiyo waxa ka qiimo badan تي إلهي أو يوم من الآخر وشيقي ولكن هنونيناي وحي مستقبل كأكيلس هكا قيمة بدن واحد دون لوسيو وحي أديك أهل هذه أفرتن مع المود مركا أوركو هيدا كوبرنت أجس هذا عمل كذا وحعوني لهاد كل وقرنت حقنا ملوك يعني كرو لكن وحا مهم إن سلب قرش الشقات كان عن سميني سحلو فلي أو فنانه wax walba oo la sameeyo hal mar lama wada sameyn waa la sameeyay dib u eegis lagu sameeyna waa la saxa dib u eegis la sameeyna waa la saxa waxa la yiri wixii hal qof dhibo laba qof ma dhibaan macna miiskan hadii uu hal qof qaado in laba qof qaado wixii kala fiican in laba qof labada dhinac ka qabato marka shaqo fiican oo noo bilaabato waaye